لا تخرفي يا دار خلد إنه ما كان يوما عن جهاد جاثيا واستبشري يا حور عين واهتفي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa. darsigeen wuxuu ka bilaabanaa aayadda 50 ee min suurati albaqara. waxaana kusoo guda jirnay qisadii reer bani israa'iil. ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi: waid faraqnaa wadkuruu usoo qadaro xusuusta id waqti xusuusta reer bani israa'iilow wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow id waqti xusuusta faraqnaa aan dilaacinay bikum bisababikum sababkiinana aan u dilaacinay albaxra baddii oo fa anjaynaakum aan idin badbaadinay adinka oo wa agraqnaa aan maasheenay oo biyihiina aan ku maasheenay aala fircawna fircawn iyo ehelkiisi walxaal ayaan fircawn ehelkiisi maasheenay antum adinka oo tanduruuna fiirinaayo qaabka loo maasheenayo walxaal antum adinko tanduruuna fiirinaayo yacni qaabkii loo maasheenayo biyaha lagu qarqinaayo. ilahi wuxuu yihi jala jalaaluhu: waid waacadnaa wadkuruu xusuustoo sheega reer bani israa'iilow id waqti sheega waacadnaa aan la ballantanay muusaa nabiyllaahi muusaa 40 leylatan 40 habeen aan la ballantanay. huma markaas ka gadaal intuu yacni 40 habeen miiqaadkii uu ku maqnaa xagga alle uu ku maqnaa kitaabkii towraad aan uu idin doonay ittaqaytum waxaad samaysateen alcijla weylkii waxaad ka samaysateen ilaahan macbuud ayaad ka samaysateen mid la caabudo min bacdi dahaabi muusa nebi muuse markuu baxay oo yacni miiqaadka xagga u aaday ayaad samaysateen walxaal ayaadna weyl samaysateen antum adinkoo daalimuuna kuwii dulmi sameynaya ah. uma markaad weylka caabudeen ka gadaal cafownaa cankum waa iska kiin cafinay cafowna waan cafinay cankum adinka waa iska kiin cafinay min bacdi dalika min bacdi cibaadati alcijli weylkii ama dibigii yaraa markaad caabudeen ka gadaal waa iska kiin cafinay lacalakum tashkuruuna likay tashkuruun si aad u shukrisaan oo ilaahay nicmooyinkiisa aad kaga shukrisaan. waid wa aataynaa wadkuruu xusuusta reer bani israa'iil oo nicmooyinka ilaahay idin gala xusuusta id waqtina xusuusta aataynaa muusa nebi muuse aan siinay alkitaaba kitaabkii towraad walfurqaana xaq iyo baadil kala saariya aan siinay lacalakum tahtaduuna lacalakum waxaad mudantihiin tahtaduun inaad hanuuntaan ama lacalakum tahtaduuna likay tahtaduun si aad u hanuuntaan daraaddeed. aayaddan 50 ilaahi subxaana watacaala wuxuu nooga waramaa badbaadintii reer bani israa'iil ilaahi subxaana watacaala u badbaadiyey. nicmadaas xusuustaa la leeyahay cadaabkii iyo dhibkii shaqadii cuslayd iyo wiilashii la gowracayay oo reer fircoon uu idinku wada ilaahay subxaana watacaala uu idinka badbaadiyey iyadoo faahfaahsan yacni suuratu ahay iyo ee nagu imaan doontaa insha allah. ilahi wuxuu yihi wadkuruu xusuusta id waqti faraqnaa aan dilaacinay bikum bisababikum reer bani israa'iil sababkiina aan u dilaacinay albaxra baddiyaa la dilaaciyey ilahay baddiuu dilaaciyey yacni markuu dilaaciyey fircoon iyo nebi muuse waa soo galay calayhi salaam iyo yacni ummaddiisii way baxeen fanfalaqa fakaana kullu firqin kadawdi alcadiim. marka dhowr qeyba ilahay waa kala dilaaciyey biyihii way istaageen sida buur oo kale istaageen buur oo kale. markaasaa badda 12 wado oo ilaahay ka jeexay. wado walba waxaa marayo yacni qabiil oo reer bani israa'iil ka mid ah. ileen 12 qabiil ayay ahaayeen sida ay noo imaan doonto insha allahu tacaala ay noo imaan doonto. qabiil walbo yacni wado oo badda ka mid uu maraayay sida buur oo kale biyihina ma isku darsamaayo. biyihii dhexdoodna ilaahay dariisho u sameysay isku arkaan qabiilba qabiil kale suu arko. faanjeenaakum aan idiin badbaadinay oo agraqnaa aan maasheenay oo biyi aan ku dilnay aali fircawn ehelkiisi. nabi muuse calayhi salaam markuu badda ay galeen iyo qoomkiisi kii ugu dambeeyey markuu kasii baxayay fircawn iyo qoomkiisna kan ugu dambeeyaa soo galay. ilaahay badduu kor iyo hoos isuga keen wuu ku halaagay biyihii
walxaal ayuu ilaahi subxaana watacaala fircoon eelkiisa maasheeyey antum adikoo tanduruuna fiirinayo qaabka biyaha ay ugu xabqanayaan qaabkay u dhimanayaan oo adikoo fiirinayo fircoonna meedkiisa waa la badbaadiyey ilaahay meeltaag oo buuro idiin saaray si aad ugu cibro qaadataan ilahi wuxu yiri subxaana watacaala waid waacadnaa wadkuru xusuusa reer bani israiil id waqti waacadnaa aan la ballantanay muusa nabiyullaahi muusa 40 leylatan 40 habeen nabi muuse wuxuu aaday yani miiqaadkii aaday 40 habeen suuratu caraaf inuu imaan doontaa 40kaas habeen waxaa la yidhi hal bil waxay dulqacda bishan dulqacda la yidhaahdo oo yani oo hal bil 30 maalmood ah iyo 10 maalmood oo bisha dilxija oo carafada 40kaas maalmood oo xagga jiriya la yidhi ilaah og lagsaasay culimmada sheegaan marka 40kaas maalmood waa markii la halaagay fircoon iyo qoomkiisii markaasuu xagga nabi muuse wuxuu doonay kitaabkii towraad ayuu doonay alwaxdii uma markuu nabi muuse yani aan la ballantay markaas ka gadaan ittaqadtum waxaad samaysateen reer bani israiil cijla weylkii cijl waxaa la yihahdaa dibiga yar dibiga yaraa la yihahdaa weyl af soomaali la yihahda alcijla weylkii ilaahan macbuud ilaahan usoo qadar mafcuulkii labaad oo ittaqada maxduuf ah يعني العجل ويلكي واحد كسميستين إلها كل عابده من بعد ذهاب موسى نبي موسى مركو بحي كذب هاد سميستين إلى موسى مركو جوج ما إذن كيلاي وهذا يعني ما إذن كيلي لين والحالة يا سميستين دي والحالة يا دبيجي يعني إله كدقتين أنتم أذنكم ظالمون وكوي الظلم سمينا يعني الظلم حرام واي عبادة إله الله قفك العداس يسو الظلم واي ظلمنا حاجة عربي وحالي هذا أما حاجة علماء هذا فقه هذا الظلم هو وضع شيء في غير محله وضع شيء في غير محله إن شيء لا دقواي بوسكيس بوسان أهين يعني شيء كان هذا تصالح قالنك جيبك كور على قشة أما موبايلك هذه كور قشة الصول كبت هوسي ده قشة كور بوسكيس معها سادرت العبادة بوسكي اللي هذا حواي الله إسكال العبادة هذه قفك العاسي سنة بوسكي بوسان أنا نكتي ظلم دملوها تامر ثم مركز كجدال أو دمي مركز عبودين كجدال عفونا عنكم وأسكين عفيني هذا إلهي أو أسكين عفيني من بعد ذلك من بعد عبادة العجل دي بقى عابد ديس كجدال دي بقى عابدين كجدال إلهي وأسكين عفي وأنا حريص بدنيا لعلكم تشكرون لكي تشكرون سيادة الشكر سندرادت أو إلهي إذن عفي لكن ما شكرنا سن آوهي واذكروا حصوص ريب بني إسرائيل إذ وقت حصوص آتينا أنسيني موسى النبي موسى الكتاب كتاب كتورات أنسيني والفرقان حق بعد الكلاساري عطف تفسير آلي هذا كتاب كتورات على الشيء فرقان كنيسة الأسيقوة والفرقان حق بعد الكلاساري أنسين وعطف تفسير آلي هذا لعلكم تهتدون لكي تهتدون إن تكونوا تندرادد أيان أسيني قال تعالى إلى يحيي جل جلاله وإذ قال موسى واذكروا حصوص رير بني إسرائيل إذ وقت حصوصتا قال موسى نبي موسى ويري لقومه تلكي سوكيري يا قوم كيجيو إنكم أذنك ظلمتم واد ظلمسين أنفسكم نفيالكين أياتكو قردروتين إنكم أذنك ظلمتم أنفسكم نفيالكين أياتكو قردروتين باتقادكم سميس شديني sababkeed ayaan ugu gardarooteen alcijla weylka aad ka samaysateen ilaahan kula caabudo bitiqaadikum ka dhigashadiini sababkeed ayaad nafsadiini ku dulmiseen alcijla weylkan aad ka dhigateen ilaahan mafcuulka ilaad itiqaado macbuud kula caabudo aad ka dhigateen sidaas ayaad nafsadiini ku dulmiseen maxaa yeelay weyl ilaah ma ahan ilaah aad ka dhigateen sidaas sababtaasaa marka nafsadiini ku dulmiseen fatuubuu النقضة إلى بارئكم إلى خالقكم أحد كيدين أبو ريو يدين برباري حقيس النقضة أطوبت كينا سنطوب إله سنطوبت كينينا ترير بني إسرائيل طوبت كين قد وحوها إن النفط إسكا قويا فاقتلوا الله والدلة أنفسكم نفيالكين الله ذلكم أي القتل يعني الدلكاس أو نفسدين إن الدشان أو كو إسكا سيسان خير لكم إذن خير بدن عند بارئكم الله إذن أبو ريو يدين برباري اكتي سنة إذن كو خير بدن marka faqatalu anfusahum marka nafyaalkoodii meesha u qadaran annaga ilaahay waa noo naxariis ummatu maxamed naana calayhi salaatu wasalaam qofkii dambi keeno ilaahu gacmahu ilaahay subxaana watacaala intuu tuugo ilaahu baryaa dembigiis ilaahay waa ka toobad aqbala 3 shuruudii laga helo fahmaysaa marka ilaahay ama 4 shuruud hadduu xaq bini aadam ku jiro laakiin iyaga islaas meen ayaga waxay aayeen hadday dembi sameeyaan markay toobad keenayaan way isdilayaan kawa iska siinayaan sidaasoo toobad lagu aqbali jiray marka sidaas ay marka faqatalu anfusahum fiyalkoodii dileen waxay leeyihiin culimada sida Abdullah ibn Abbas oo kale wuxuu yiri yaani waxay sameeyeen qoladii dibiga caabuday way fariisadeen way jilba jabsadeen qoladii aanan dibiga caabudin waxay qaadeen midiyaal iyo seefafa loo dhiibay qoraxdiina haraa jiray markaas qaarkood qaar kale kow ka siiyeen
ilaa maxaa la dhihi jiray daruurtii ay feedmadsay hal maalina waxay dileen yacni 70,000 oo kuwii dibiga caabuday hal maalin la dilay fahmaysaa kullu man qutila minhum kaanat lahu tawba qof alla qofkii la dilayna tawbay ee dambigiisa lagu dhaafay wa kullu man baqiya kaanat lahu tawba inta alla intii soo hartayna iyagana tawbay ahayd sidaasay ku toobad keeneen fataaba calaykum way toobad keeneen marka fataaba calaykum ilaahayna waa idinka toobad aqbalay maadaama aad isdisheen innahu alle huwa tawaabu waa alla toobad aqbalis badan arraxiimu ee naxariis badan وإذ قلتم اذكروا حصوص رير بني إسرائيل إذ وقت حصوصتا قلتم هاتراهين يا موسى موسى لن نؤمن لك كور ميمينو حتى نرى الله إلى أن أرقنا إلهي جهرة ستوس أو مقالها إش أدنو صارتو فأخذتكم فبسبب قولكم هذا الكيني سبب كيسنا أخذتكم إذن قبطي الصاعقة برقدي والحال إذن قبطي برقدي أم قيلدي أنتم أديكو تنظرون في رين ثم مركا كدبنا بعثناكم وان إذن صوبحني من بعد موتكم لمشديني كجلال وان إذن صون نوليني لعلكم تشكرون سيادة شكر سان أيضا إلهي سبحانه وتعالى من عند حنوك شيئا تضواتا قف أضياشي رير بني إسرائيل كمدها أها أضياشي نبضونا أها أيو النبي مركي دنبيك سمايين أي محل يجري دبيك عابدين تضواتا أيو لبحي أيو ميقاتك حق الآذي حق ألا الآذي markuu geeyey meeshii buurtii uu geeyey meesha lagu waxyoon jiray markaasay waxay yidhaahdeen muuse anaga ma kuu rumaynayno ilaa ilaahay hadalkiisa aadna maqasho markaasa fasamicuu kalaaman hadalkii ilaahay maqleen waa la maqashiyey markaas waxay yidhahdeen ma kuu rumaynayno anaga cod keliyaan maqalnaa ilaa ilaahayga kula hadlayo codkiisa aan maqlayno aad isha noo saarto allahna hadda aan maqlayno codkiisi isha noo saari yidhaahdeen markaasa ilaahay biriq ama qaylo cirka loogu soo dejiyey jibriil ku qayliyey ama maxaa la jiray ama biriq ku soo degtay 70kii way dhinteen markaas nabi muuse ilaahay uu calaacalay markaas ilaahay 70kan aan magaalada ka soo waday hada meesha sidaan ay ku baqtiyaan ay ku dhintaan keligii magaalada aan u laabto reer bani israa'iil waxay leeyihiin muuse 70kii odayaasha nabadoonadu la baxay in reeradkii markaas uu soo laayay odayaashii inuu laayna magaxumadaas beledkii gelinay ilaahay soo noolay markaas ilaahay uu soo noolay ilaahay wuxuu qisada saasiyad marka وإذ قلتم اذكروا حصوص بني إسرائيل إذ وقت قلتم هاترادين يا موسى لن نؤمن لك كور ميمينو حتى نرى الله إلى إلهي أن أرقنو جارة ستوس أو مقال إيش أدنو صارتو أو فأخذتكم فبسبب قولكم هذا الكين سبب كيسي أي أخذتكم إذن قبطي الصاعقة قيلذي أما بريقذي جبريل قيلي أما بريق أقول عدواليري والحال أي محل يجري إذن قبطي صاعقذي أنتم أديكو تنظرون فيرين هايو يعني محافيرين إنسان يعني بعضهم وبعض ينظرون يعني قاركود قارك لسدو دماناي فيرنا كان دماناي كان كلا دماناي قاركين تدواتن مدول مركو دماناي كان كلا فيرنا ثم مركز كد مركات دمتين كجدال نبي موسى نو علي بعثناكم وان صون نوليني من بعد موتكم غيريدني كجدال او نبي موسى عليه السلام دعديسان اقبلني مركاسان ادين صون نوليني لعلكم تشكرون سيادة شكر سان والى اودي سعدو غرتان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد